وواحد لو يقانا تنترام كاللغة في إنجليش كما اللغة medical كا صدح سيابات بدنا وحي أشقيان عرورتا هل سنة إلى 7 سنة قياستي إنكستو إلما كوين حتى يشقين كران waxaa muhiim ah daawada intaana saddexda tallaabo aanan sheegin in la ogaado sababaha ilmaha ay age-ka ama da'daas aysan u controli karin oohintooda iyo emotionska dareenkooda waxaa keenaya sababtoo ah qaybaha controla maskaxdooda sida prefrontal cortex-ka qaybtan maskaxda ah iyo maxaa la yidhaha amygdalada iyo hypothalamuska ilmaha saddexdaa qaybada ugu badan oo dareenka bini'aadamka lagu controli karaa diyaar ma ah ma diyaarsano marka ilmihii hadduu wax yar xanaaqo waxaa laga yaabaa ilmaha qaarkood inaysan controli karin oo shucuurtoodii wixii aynan iscontroli karin taasa horta waxyaalaha qaarkood keenaysa ilmi aad inay ooyaan marka daawade waxaan insha allahu ku bilaabaynaa midda koowaad ta koowaad oo ah waxaa loo yaqaano situational planning amaba distractionka maxay tahay situational planning ama distraction qofkii anugii waa in aad sii qiyaasi karto anugii waad og tahay calaamadihii aad fiirinaysaa jawigiisa dareenkiisa waxaad dareentay ama waxbaa laga qaaday ama waxbaa lagu sameeyey ama already signs uu ku siinaya calaamado inuu oohintii bilaabi rabo markuu oohintaa bilaabi rabo waa inaad anugii ama mashquulisaa ama arrintii ka jeedin karto intuusan oohinta bilaabinba waa dareentay adiga inuu soo wado waa ka hortagaysaa marka yani waa sii bedelaysaa marka waxaa samaynaysaa distraction aan la dhaha masalan ahaan anugii isagoo bilaabi rabaa hal mar waa booday waxaa dhahday oo kale si yani shucuur iyo xasaasiyad ay ku jirta alla meeshan fiiri dariishadda intaas tagtay dariishaddaa fiiri gaariga marhaya gaari cadaa marhaya 10 gaariyaa marhaya kan fiirina maasha allah waa cunugaa ku jira qofkii adiga adoo shucuur le markaasaa u jeediso dareenkiisi iyo wixiisi iyo oohintii uu rabay wuu ka jeedsanay waxaa laga yaabaa cunugii inaad wax laga qaaday inuu wax dareemay asagii aad dareentay markaas saa samayso oo adigii aad attentionkiisi iyo dareenkiisi aad dhinac kale u jeediso wuu iska hilmaamaya wixii marka midda koowaad oo distractionka qofkii cunugii in arrintii aad dareento aad kasii feejignaato dareento inuu ooy rabo aad ka mashquuliso oo aad xasaasiyad yani aad wax uu asaga u leh interest u leh aad ku jeediso number 2 waa waxa loo yaqaano Instagram moment baryan ka Instagram ka list Instagram moment maxay tahay ama ilbiriqsiga Instagram markaad Instagram ka ama fiirinayso ama TikTok fiirinayso ilbiriqsiga laga yaabo wax inaad sawir ku soo maran ku soo fiiri taas maxay tahay laba siyaalo waa ilmaha waxay u ooyaan sidoodaba oo laba natiijo ka rabaan ay waa mid waxay rabaan waalidkii aan time fiican ilmihii siinin mar walba inuu time ilmihii la qaatay rabaan attentionkii waalidkay raadinayaan markay ooyaan in la xambaaro in la qaado in wax loo sameeyo wixii rabaan that is why waxay dareemayaan in attention badan la siinin midda labaad oo ah waxay rabaan midnacay rabaan ama toy ama wax laga qaaday rabaan ama cunug kale wax la siiyey waxay doontaa noqoto labada natiijo kale in ilmaha oohintooda ugu badan marka adiga ta ugu muhiimsan oo canugii sidiisaba maadaama attentionkii wixii dareenkii uu rabo dareenkaadi inuu soo jiitiyo soo jeesadaadi iyo time inuu kula qaato uu rabo maalintii cunuggu hadduu yahay cunug aad taqaano ilmaha iska ooyo iska dhib badan oo oohinta fara badan oo dabeecadda xun aan dhaano age-kaano da'daana u yahay waa inaad samayso 15 jeer meelahaas qiyaastii wax 5 ilbiriqsi ilaa 10 ilbiriqsi dhan asaga siinaysaa time kaseed ku siini hal mar oo kale tusaale ahaan adigoo shucuurtaadii wixii dareenka siinayso farxad tusaysa asaga inuu waxaad encouragement ama dhiirigelin waxaad ku siinaysaa hal mar intaad soo bodaa dhihi kartaa canugan fiiri maasha allah funaanadan aa qabto kalarkeeda waa bulu meeshan leen cagaara marsan inta saan waaye say u quruxsan tahay fiiri marka adigii laakiin waa inaad dareen tusto canugii farxaddii wejigaadi uu dareemo ay run kaa tahay oona xanuun adoo yani emotion aad tusayn inaad tustaa la rabaa inay farxaddii kaa muuqato taas markaad samayso oo marka qaarkood ama dhahdo alla toygan aa fiirsata ama gaarigan aa ku ciyaarayso maasha allah aad uu quruxsan yahay wuu fiican yahay suu wardaya fiiri wuxuu ciyaaraya fiiri maasha allah marka taas marka ilbiriqsi 5 second ilaa 10 second maalintii ilaa 15 jeer markaad siiso cunugii mar walba dhiirigelin u helaya
oohintii iyo dareenkii uu rabay in laga maqan yahay way ka dhumaysaa marka canuga taa marka midda labaad waa midda saddexaad ee ugu dambaysa waa markii cunuga la kari waayo wax kale ka samirto sasab iyo wixii kaloo dhan lagu fiiriyo waxaa waaye annaga ilmaha waa garaacnaa ilmaha garaac uma fiicna ilmaha badana waxa oo ugu fiicsan waxaa waaye garaacaas iyo canaanta ka dhib badan tan kale oo hadda aan sheegi doono oo midda ugu dambaysa ugu dhib badan maxaa waaye canugi in la garaaxo see lagu garaaxo canuga wax time out kala dhaho time out canuga oohintii haddaa ku kari weyso uu ooynayo soo qabo ilmihii iyo tvga iyo meeshii aad joogteen dhan ka qaad qolgee ku xir qolkaas u sheeg markaad aamusta waa kaa fura qolka ganaaxu dareema marka laakiin tan ganaaxa waxay ku shaqaynaysaa kow waa in meesha laga dhex bixiya dadka kale u joogay number 2 waa in adiga aadan sidii robot aadan dareemi aadan tusin inaad xanaaqsan tahay aadan tusin inaad faraxsan tahay midna aadan emotion aadan dareensiinin hooyanimadii caatifadiina aadan tusin cunuga meesha ku xiraysa ha ooyo waa sugaysaa markuu aamuso albaabkii ka fur hadduu haddana oohinta bilaabo ku xir haddana waa ka aamusta waa kaa fura haddaa rabta uu aad iskugu sii adkayo walk away kaba tagba meeshii qol kale iska gal iska seexo iska naso taas waxay tusayaa marka cunugu wuxuu dareemaa markuu ooyo wax isoo socda ma lehe aan iska aamuso wuu iska aamusaya marka next time marka toos wuu aamusayaa markii meesha la geliyo bas waqti yaray ku qaadanaysaa inuu aamuso midda saddexaad ee ugu dambaysa taa waay marka waxaa kaloo la rabaa inaad iska jirto laakiin saa idiin sheega canuga markuu ooynayo labada arrimood uu raba attentionkii waalidkiisi iyo wax kaloo raba in laga qaado waxa uu rabo canuga ha ku raaligelinin ama ha ku reward yani ha u siinin gift ahaan ha u siinin wixii uu rabay telefoonku hadiyad ahaan camal ma wayna dhacdaa hooyooyinka qaar saasay sameeyaan si mataqana cunuga uga aamuso marka uu aad weligii oohinta uu waxaas baan ku gadi ya lama raba taas yani wixii tusaale ahaan wuxuu rabay telefoon uu rabay telefoonkii uu u ooynhaya adigana u diiday ha siinin wax kale oo ka fiican marka ugu bedel wuxuu dareemaa marka next time mar kale uu ooyo in wixii aan la siinaynin marka uu iska aamusaa maalinta dambaysa oohinta way sii dhammaanaysaa daawadayaal arrinta ayadaa tijaabiya ku feeriya noo soo sheega hadda insha allah waxaa laga yaabaa inay aad ilmaha qaarkood oohinta badan idinku shaqayso waxaan idin rajaynayaa saddexdaa tijaabo ama saddexdaa siyaabood inay idin caawiso khaasatan ilmaha sanadka ilaa 7 sano jira ee oohinta faraha badan